بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين كلمذيني كوي طبانات maanta waxaan ku soo qaadanaynaa alqudwatu lirasuul ama ku dayashada nabiga calayhi salaatu wasalaam. nabiga calayhi salaatu wasalaam waa shakhsi oo bashar ah uu ilaahay dadka ka doortay. khalaa'iqda markaa jirtay cidda uga fiican nabiga inuu yahay intaanaba islaam la isla gaarin buu ilaahay subxaanahu wa tacaala ogaaday inuu nebi maxamed ugu wanaagsan yahay dadkan oo dhan. markaasuu ilaahay doortay. doorashada ilaahay marka haddana marxalo saro oo bani aadam kamaal uu gaari karo dhan baa ilaahay gaarsiiyey. walidaalika doorashada rasuulnimada loo doortaa dadaal laguma gale, waxaa weeye ikhtiyaar ilaahay lagu helaa. allahu aclamu xaytu yajcalu risaalatah, ilaahay baa idinka og cidduu risaalada u dhiibanayo. marka nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ka dhigay miisaan lilacmaal. waxaan daacaadka la sameynaa adduunyada markii wax la kala gadanaso miisaan lama saaro. daacaadkan bani aadamka ay sameeyaan anu miisaankiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam. walidaalika waxa weeyaan qiyaamada markii la tago waxaa la weydiinaa rususha wixii aan idiin dhiibnay dadka sidii aan idinkugu dhiibnay ma idinka qaateen. يوم يجمع الله الرسل ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. maalintaas way adag tahay, maxaa la leeyahay dadkaan oon idiin dirin maxay idinka qaateen. marka min hawli الqiyaama daraaddeeda laa cilma lanaa bay leeyihin, ilaahu sidii la rabay uma ogin. innaka anta calaamul, laakiin adigaa naga ogo waxa maqan adaa ogmaba u baahnid inaadna weydiisay. ciddii naga qaadatay waxayd noo dhiibtay iyo ciddii nagu diiday adigaa naga oga, ilaahu sidaa dadka ula dhaqan bay leeyihiin. marka nebiga waa miisaan. awal shay markaad qabriga geshid waxaa lagu weydiinayaa sidii axaadiis saxiixa bukhaari muslim ay wariyeen, maa cilmuka bi hada arajuli, ninkaa maxaad ka taqaanaa lagu weydiinaa. lagu weydiin maayo qabiilka aad tahay, laguma weydiinayo dariiqada aad tahay, madhabka adduunyada aad ku haysatay, maxaan ku idhaahdaa xisbiga aad ku jirta, cid ku weydiinaysa male. maa cilmuka bi hada arajuli, ninkii mu'min ahoo adduunyada nebiga jidkiisa soo haayay wuxuu leeyahay huwa muxamadun rasuulu ullah jaaءanaa bilbayinaati wاlhudaa faajabnaahu waaamanaa waاtabacnaa huwa muxamadun huwa muxamadun huwa muxamed. bal ogow jawaabtaas eeg. waxaa weeyaan markii qabriga qofka lagu weydiinaya waxaa lu leeyahay ninkaa maxaad ka taqaanaa. ninkii awal nebiga jidkiisa raaci jiray oo sunnadiisa qaadi jiray wuxuu leeyahay ilaahay rasuulkiisii weeyaan, wuxuu noola yimiday bayinaad cadcad iyo hanuun, waan ku ajiibnay, waana rumaynay, waana raacnay. markaasuu ku raaxaysanaa huwa muxamadun huwa muxamadun huwa muxamadun ou leeyahay. marka nebiga dadka yuusan kaaga darsamin. ilaahay subxaanahu wa tacaala khalqigaa markuu abuuray muxuu u abuuray cibaadadiisa. wamaa khalaqtu اljinna walinsa ila liyacbuduun, inay caabudaan buu ilaahay u abuuray. marka su-aasha meesha imaanaysa waxa weeyaan ilaahay muxuu ku yidhi war aniga inaad ii caabudaan ku abuuree sidaad rabtigu caabud maa lagu yidhi, mase waxaa lagu yidhi icaabud sida aniga aan raba igu caabud oo ah rasuulkaas aan kuu soo diray wuxuu kuu sheegay sidaa u qaado, sidaasaan aniga rabaa buu ilaahay leeyahay jalla jalaaluh. marka siday ila noqoto ilaahay laguma caabudi karo, lianna adiga wax kula wanaagsan baa ilaahay la xun, wax kula xun baa ilaahay sharcigiisa ka mid ah. marka adiga caqligaada macno ma leh. waxaa lagu leeyahay waxa adiga aad rabtid ma ahana waxaan aniga aan rabay igu caabud. arrinta way go-an tahay, wax oo adiga oo lagaaga tegay ma jirto. sidaa daraaddeed baa ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulih. ilaahay rasuulkiisa ha ka hormarina, ha ka dib marina, ha ka dhinac marina. macnaha waxa weeyaan wixii ladiin ishaare qaata, sidaas baa la yidhi. sidaa daraaddeed baa ilaahay wuxuu laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhira wadakara allaha kaiira. dadkiia waxaa la yidhi dad yahabow oo rasuulka raacayow
waxaad leedihiin uswatun xasana nebiga inaad ku dayataan yaa nebiga ku daya karo liman kaana yarju llah walyowma alaakhir ninka ilaahay wax ka rajaynaya oo maalinta qiyaamo aaminsan waxa dhacay oo adduunyada intii joogayna ilaahay aad u soo xusay ninkaas unbaa nebiga sidii la rabay ugu dayan karo lianna wuxuu rabaa dayashada nebiga uu ku dayanayo inuu adduunyadana ku hanuuna aakhirana ku badbaado liman kaana yarju llah walyowma alaakhir haddii aad rabtid qiyaamada inaad iska batalaqsatid anta wa sha'nuka laakiin haddaad doonaysa inaad badbaadid nebi moxamed xagow iga jiraa dheh saasaa lagu leeyahay walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam yaa wuxuu dhihi jiray salluu kamaa ra'aytumuunii usalli ma dhihin abubakr si uu dukadaa fiiriya cumar fiiriya kayta fiiriya ma dhihin wuxuu ihi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli aniga sidaan u dukanay iiga dayda nebiga qowlkiisa waa diin ficilkiisa waa diin wuxuu kugu sugana waa diin waxaan saa u qaba dukura waa diin ilaahay waa sidaasoo kale xajka markuu joogay ou ihi hadan aniga idinlama gaariye aniga waxa samaynaa fiiriya lita'khuduu canii manaasikakum buu nabiga calayhi salaatu wasalaam yidhi war xajka saad u gudanaysiin aniga iga qaata wixii aad macnaha aan hadal idinla gaari waayo ficilkayga fiiriya walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam kullu xarakaatihi wa sakanaatihi waa la fiiri jiray xataa nebiga markuu intuu meel fadhiisto ou xaajadiisa gudanayo waa la fiiriyey sida loogaga faa'iidaysta dariiqada loo guto xaajada marka ma aha nabiga calayhi salaatu wasalaam qof caadi ah ma ah waa bashar laakiin allahu tabaaraka wa tacaala ikhtaarahu waxaan idin sheegaa shaydaanka laba isbaarou leeyahay isbaarada koobaad waxa weeyaan wuxuu isku dayaa dadka diinta inayna soo gelin oo sidii la rabaa in ay u qaadanin bannaanka inuu ku celiyo derbigaas inuu ku celiyo xayndaabka ay soo gelin buu isku dayaa waxa waaye waa intuu kari kara ina ashayطaana lakum caduwun faاtakhiduuhu caduwa waa cadow weeyaan waana ka hadli doonaa muxaadaraan u khasisi doonaa haddii ilaah yidhaahdo marka hore wuxuu isku dayaa inaynay soo gelin markii diinta soo galaan ay qaataan haddana inuu dhinac kale uga bixiyo yuu isku dayaa fiiri bal cadownimadiisa intay gaartay walidaalika waxaa adag qofkii haddii uu ilaahay diinta ku hadeeyo ou qaato inuu meeshii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu maray iyo wuxuu sameeyey inuu kaga daydo shaydaankii wuxuu leeyahay maya hore u sii soco waxaan ku dar markaasaa diintii waxaan ka mid ahayn iyo wixii ka mid ahay kulli buu isku dhexyaacinaya wuxuu leeyahay meeshaan lama istaaga buu leeyahay markuu diintii soo dhex galo sidii la rabay u qaato ou leeyahay mamnuuc ruquufuna meeshaan lama istaagi karo hore u soco marka cibaadadii ilaahay u jiday boqolkana waa ka horeysaa boqol dambana waa ka dambaysaa inuu nebiga meesha ku istaagay uu ku istaagaa dhibayso rag oo saxaabadiisa ka mid ah ayaa habeenka nebiga u yimaadeen gurigiisa yimaadeen oo weydiiyeen cibaadadiisa nebiga suu u dukadaa muxuu akhriyaa muxuu idkaara markay ay dhageysteen kaannahum taqaaluuha baa layidhi waa yaraysteen nebiga cibaadadiisa waa yar tahay laakiin waxay u yar tahay ma taqaani ilaahaba dembigiisa dhaafayba cibaado badan lagama rabo sidaa daraaddeed waxay yidhahdeen cibaado badan waa in annaga samaynaa nebiga markuu yimid iyou weydiiyey dadka maxay yidhaahdeen saas iyo saas bay yidhaahdeen markaasuu yidhi abadan saas ma ah buuri waxuu nebiga ku dhaartay wallaahi innii la akhshaakum lilaahi wa atqaakum lah waxa aniga aan sameeyey yaa waxa ilaahay loogu dhowaana ugu fiican ah anaa ilaahay idinku cabsi badan cibaadada uu nebiga samaystay waa midda ilaahay lagu gaara darajada sara maahina wax adiga aad istiraada badnaasha masalada ma ah mas'alada qudwa nebiga lagu dayda calayhi salaatu wasalaam waa walidaalika ilaahay wuxuu yidhi huwa aladii khalaqa almowta waalxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala fiiri ilaahay nolol iyo geeri wuxuu u abuuray inuu idiin imtixaano suu ilaahay subxaanahu wa tacaala u ogaado waana horena waa uga ogyahay midkiinii camalkiisa u wanaag badan yahay axsanu camalan camalka axsankaa waxaa layidhi waxa weeyaan aswabuhu wa akhlasuhu weeyaan aswabka waxa weeyaan kii nebi moxamed jidkiisa lagu raaco toosa
iyo midka ilaahay mooye wax kale aan loola jeedin labadaasaa laga rabaa laba rugni oo al-ikhlaas wal-mutaabaca inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ahayn cibaadadiisa adigu u dhowaanin ha lagu arka ay kaa ahayn iyo inaad nabiga calayhi salaatu wasalaam ku raacdido adiga qardajeex aadan samaynin labadaasaa muhim ah walidaalika nabiga calayhi salaatu wasalaam in lagu ateeco wuxuu sameeyey ama uu amray waxa weeyaan ilaahay baad ateecatay man yudici rasuula faqad ataaca allah waman tawallaa famaa arsalnaaka calayhim xafiida ninkii ilaahay rasuulkiisa ateeca ilaahay buu ateecay liannu ilaahay asaa soo dirsaday ilaahay markuu soo dirsaday wuri nebigaas baan soo dirsaday wuxuu idin yidhaahda ka qaato taasaa aniga raalligaranaysa markaasaa waman tawallaa ninkii arrintaa ka jeesto ee asiga wax min cindii iskala yimaado famaa arsalnaaka calayhim xafiidan adiga inaad koobtid laguma talagelin annagaa la xisaabtamaynaa lil adig gaarsiin unbaa lagaa rabaa maa cala arasuuli ila albalaaq marka taa macnaheedu waxay tahay ninkii rasuulka adeeca ilaahay buu adeecay macnaheedu waxaa weeyaan rasuulka waa waxyi waxa uu samaynaa oo dhan uu ilaahay u soo waxyooday ilaahay wuxuu yidhi wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa nebiga waxaa layidhi hawadiisa isay wax ula tahay kuma hadlo laakiin wixii loo soo waxyooday unbuu idin sheegaa baa layidhi marka wuxuu nebiga samaynaa iyo nebiga wuxuu ku hadlaya kulligeed waxay ka mid tahay waa waxyi min allahi tabaaraka wa tacaala sidaa daraaddeed yaa cabsi la-aan waxaana la yidhi nebigaas wuxuu idin yimaad xil idinkama saarna sidii uu idinkugu sheega u qaata wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu baa ilaahay u yidhi wuxuu rasuulka idinla yimaada qaata wuxuu idinka reebana ka reebtoomaada marka taasaad janno iyo guul iyo raallinimo ku gaaraysiin wakhtigan aan joogno qudwada waxay ahayd in laga hadlamo in u baahneen liannahu waxa weeye min albadahiyaat laakiin wakhtigan waxa weeyaan dadkii meelaha ay ku kala qoqoban yihiina badan intimaa'aadkooda badan nin waxaad arkaysaa sheikhu ariiqa sheikh oo zacaamaad ruuxiya layidhaha sheikha ariiqa uu raacsan yahay maanta dhan asiga ficilkiisa iyo wuxuu sheegay adkaar asigoo u dhigtay waxa uu samaysto uu dadka kaga soocan yahay baa ninkaasoo dadkiisa ugu yeeranaya atbaacdiisa oo dhan haddaad fiirisid diinta ilaahay waxa kaga jira waa farakutiris inta kale asagaa iska samaystay waxuu rabaa in lagu yaqaano waa zacaamaad ruuxiya la yidhaahdaa waa qayb kale waxaa weeyaan qolo muqalidiin fuqahaa la yidhaahdo imaamay ay qabsadeen هذا وحوى إمام الشافعي ومذهب haysta kan Maalik haysta kan Abu Hanifa diinta waxay ka qaadanayaan wuxuu imaamka siri kali ah waxa weeyaan axaadiita waa la iska akhrina quraanka waa la iska akhrina lil baraka waa markii la yiraahdo lagu amal falo imaam Shaafici muxuu ka qabaa wuxuu asiga inta ka qaato baan aniga ka qaadana waxa kale waxa weeyaan kaanahu inayna qusaynin wa taqliid al a'ma baa la yiraahdaa qayb kale waxa weeyaan jamaacad islaamiya dad umara ay sameysteen wuxuu sameystay dariiqa oo gaar oo asagoo ah qoladan fulaan waa lagu leeyahay wax bay tarkiizinayaan waxa kale way iska tuurayaan qolo kale wax bay tarkiizinayaan wax bay tuurayaan diintana waa loo wada baahan yahay in la wada qaato dadkiisi marka wuxuu leeyahay aniga halkaasaan idinka rabaa inaad sida dadka kale uga soocantiin waxaas nagula yaqaan waa inaan tarkiizinaa ama siyaasa ha noqoto ama amal kale ha noqoto wixii kalena waa la ihmaalinaya qolo waxa weeyaan ahzaab siyaasiya aluulee annaga waxaan rabnaa nolosheena dawlad inaan gaarno dariiqada aan ku gaari lahayn ru'yadeena diinta aan ka qabno iyo midda adduunyada sidaas weeyaan ninkii xisbigeena soo gala waa inuu intaas asiga haystaa oo cid kale uusan wax kale ka qaadanin wixii kale diinta ku jiro bixisbigan aaminsaneen waa la tuuraya walidaalika waxaad arkaysaa axzaab oo calmaaniyo diinta la dagaalsan oo dal muslimiin ka dhaxlisan oo ilayhin annaga diinta inaan ku dhaqanno nooma aha hadaf nooma ah waxa weeyaan dawla madaniya la yiraahdaa ummad dhan baa ninkaas raacayso wuxuu u yahay horjoogo oo raba doorasho inuu ku galo oo ku guuleysto wadanka sidaas ku xukumo nabi maxamed warkiisa ma bajiro markii halka la yiraahdo xaqiiqadu way dhumaysaa bayna taqliid alfuqaha ومتابعة الشيوخ الطرق والاتجاهات السياسية
والجماعات المختلفة حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام ويهد أمدا دان إني إسقو تيمادو وحمدين كر النبي إلا الراعون بينقون كرتا كليا مركا سيدا درادد يعني أئمة الإسلام سيدا يؤهد لان أرق إمام الشافعي كتاب كيسا الأم الليلة وحوري حدي خلائق دودان حدي كل ما النبي هذا الكيسا أي خلافان وحكا سوقات ملبوري خلافك أي نبي خلافين هذا النبي ضعيف نمو كريدي مايو فيري هدي كل قد خلافان بوري خلاف كودا معنى ماله كالنبي أمبالقاضي خلافك أي خلافين نبي سنة ستاك دروا ما قليناي ساسا إيمان لو يرادا وحور وحانو دن معنى ملبوري مركي النبي لا بربري كلهم هدي ميل اسكو راعان ونبي ميلك راعان النبي ميشي سال راعي يا بور هدي النبي كل قد كون راعاني هذا النبي أود نراد أسوء كردي مايا لأنه أسيقاب أصل هذا كل النبي هذا الكيس كون راعنه هذا النبي وحال أمتنا كون راعد هذا النبي مركا أود نراد ويشتغل مرها سيديسي هروياه لا يتغير ولا يتبدل ولذلك إمام الشافعي وغيره من الأمحير ضد يهابو وعلمي نبرتا waxaad aragtaan hadalkeena inuu khilaafsan yahay nabi hadalkiisa hadalkayga darbiga lagu garaac buu imaam shaafici sidaas oo kale maalik sidaas oo kale abu xaniif sidaas oo kale ahmed nin dhihi kara ma jirto hadalkayga nabiga hadalkiisa hala barbar dhigo hadal saas ma ah walidaalika min alkhata waxa kamid ah nabiga saayiri fulaan saayiri fulaan saayiri wa su'ul adab weeyaan in nabiga laga barbar dhigo dad oo ummadiisa kamid ah نبي سانو يري وحاكو راعي فلان فلان وحا خلاف فلان فلان هذا الكفلان وحكا سوقات ملئ إن ليري هذا من يطيع الرسول فقد أطاع الله سيدا ويان أمتي ودن اسكم خلافا أئمة الإسلام وأئمة المذاهب سيدا سيوضقبان لكن دد كان في الأزمنة المتأخرة أزمان تندم بدد كي نولا وحيبوا أركان بكلمة يقاني شافعي إيو نبي يا هري صدقوني دد بدنا يستقدر سنتي حقيقة لأنه نكانوا برتكيك ما بيقام النبي عليه الصلاة والسلام علامة الخذلان ويان ولذلك دتك سلفك أي مدد مركي ليل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مركاننا يري قال فلان فلان مركا سوري إن أنيقو كلها قال رسول الله ما بربرنيسا قال فلان فلان وحوري أنا مال أدجوكت دول أدجوكت دون إمام ما يبوري ما دام هذا الضد إليه النبي هذا الكيسات بعد بربر نجيس وإنه كان دماتنا كلا ودبوري ولذلك سلفك وحيدين سيد إمام أحمد وكلا مركي النبي سانو يري قال هذا أنا ساني قبتها مركي الآن أتيت ببنيات الطريق بقول يجري مركي النبي شيء واحد حسب برنجيس ضد النبي أنا لا شيء أو معنى له ضد كمركي الله في النبي وحي معنى ليه ما جرته waxay macna ku leeyihiin nabiga inay hadalkiisa ku raacaan ninkii nabiga hadalkiisa ku khilaafa ayan kana asaa u baahan maxaan ku yiraahdaa in dambi dhaafku loo weydiiyo oo la yiraahdo meesha waa ku gafa ilaahay dambigiisa Allah u dhaaf in la yiraahdo laakiin nin hadalkiisa nabiga la barbar dhigi kara ma jirto intaad adduunyada joogtid nabiga si fiican u baro dadkana ha kaaga soocnaado طيب marka المعيار maxay tahay oo wax lagu miisaamo waa waxyigaas ilaahay rasuulkiisa loo soo dhiibo kitaabullaahi wa sunnatu rasuulih ilaahay wuxuu qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah nabi maxamed oo ku dheh ilaaha raalika qul ya muhammad li ummatika in kuntum tuhibbuna allah ilaahay hadad jeceshiin fattabi'uni anu muhammad isoo raaca yuhibbukum allah haddaad nebiga raacdaan ilaahay baa ku jeclaanayo mafhuumkeeda waxa weeye cid kale haddaad raacdid calaa mas-uuliyatika sidaa weeyaan marka cibrada ma aha inay acmaasha badan tahay ma aha waxaa la doonayaa camal toosan haba iska yaraado oo shareecada ku hagan walidaalika ilaahay wuxuu yidhi hal ataaka xadiidu lghaashiya dadka oo laga hadlay waa dadkii oo gaalada ahay sida kirishtaanka oo kale markaasuu ilaahay wuxuu yidhi caamilatun naasiba wujuuhun yowmaidin khaashica caamilatun naasiba cumar ibn khadaab baa arkay
dad oo kirishtaan ah oo siday u cibaadaysanaya aada yaabaysid markaasuu wuxuu ri caamilatu naasiba weeyaan waa ina dhibtoodeen waxna ku heli maayaan liannahu jidkii nabiyullaahi ciise ay dhaafeen inaad ku dhibtootid wax macna ma keenaysa haddiidba aadan shareecada isku hagin walidaalika dad badan oo qadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuuran dad badan camal badan ay la imaanayan waa la fiirinaya wax nebiga lagu raacay ma ku jiraan maya warbadda isiga daralle wax macno ay leeyihin male kuwaas walidaalika ma haboono qofka inuu yidhaahdo mansibkii nebiga intuu isgaarsiiyo ummadda asigu isugu yeero yidhi aniga ha laygu daydo dadka waa inaad bartaa nin sheekh haddaad tahay waa inaad bartaa dadka inay nebigoodii bartaan adiga ha uu noqon isbaaraha u dhiganin oo aniga ha lee yimaado aniga waxa layga qaato waxaad mar kastaba dadka u sheegtay adiga waxba inaadan ahayn oo aad ilaahay ka baridaa amaama annaas ilaahay rasuulkii sunnadiisa alla hanugu haga inaad tirahdid dadka inaad bartid aad ku badbaadi kartaa laakiin si kale laguma imaanayo dad baa waxay leeyihiin hadhowata annagaa idiin gargaarayno ilaahay wuxuu uri walaa yaxmilunna ahqaalahum maca ahqaalihim wala yus'alunna yowma alqiyaamati camaa kaanuu yaftaruun marka waxaa la rabaa man sanna sunnatan xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha sunnadaas nebiga dadka ninkii ku hago asiga ajrin waa ka helaa ciddii uu ku raacdana waa helaya ninkii khilaafana asigaa mas-uuliyaddeeda qaaday marka mas'alada dad yahabo waxaan idiin leeyahay nebiga yuusan dad kale idinkaga darsoomin qur'aankii iyo sunnadii dib u akhriya maqaamka nebiga uu ilaahay geeya hala geeyo oo ah inuu yahay midka ilaahay diintiisa ka tarjumayo oo ay tahay jidka dhabta ninkana tusinaya inuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam yahay haddaad doonaysid in shafaacadiisa aad heshid sunnadiisa u gargaar wallahu aclam wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin